السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. dhammaan aqoonyaarta YouTube waan salaamay. Casharkan wuxuu ku saabsan yahay sida team viewer-keena expire markuu date ka dhaco. Dadka qaar waxay ugu shubanayaan professional oo commercial dadka qaarna waxay ku shubtaan personal. Personalka waa free, personal use waa free. Welcome to my YouTube channel. Qofa marka commercialka markaa ku shubatid waxa laga yaabaa ama taqaan shirkadda in spam ku soo dirto tamaamud markii ka dhamaato oo ciladan ku soo saaro. Marka su'aasha waxaan soo weydiiyay Faisal Maxamed oo qeybta YouTube wuxuu dhahay sidaan markaan contactigiisa la xiriirin sidaan ay soo bixiso oo time viewer-kiisa expire uu dhacay sidee markaas kaga sameynaysaa. Marka waxaad dhigaysaa start menu-gaaga tag control bar right click ku dheh control bar soo dooro install ka dheh sida caadiga faylka looga tiro ugu dir kadibna install caadi sidii qof kasta ku yaqaan laakiin waxa ka horeeyo markaad tirtid remove dheh install kadib waxa loo baahan yahay in laga soo tiro registration-ka iyo gudaha marka ayaan iska xirna kamaan kadib kale iska dheh kadib iska xirkan marka waxaan samaynaynaa computerkaaga tag open dheh kadibna C-ga tag marka C-ga tagtid waxaa laga yaabaa inaad users tagtid kadib computerkaaga magaciisa ka dooratid kadibna app data ma ku soo baxayso view markaad tagtid option ku dhufo kadibna view-ga tag kadib meesha ku qoran tahay do not show jeegka ka soo qaado waxaa keenta show keen marka hadda ku tuso markaan don't view apply do ma ujeed faylku ka qarsamo laakiin show marka dhaadid apply dhaadid uu ku soo baxa yes kadib double click see waxaad tagtaa roaming ka tag kadibna waxaad ka fiirisaa meeshaas t taaba xarafka t viewer oo jeeda right click ku dheh delete meeshaas ka delete galay kadibna haddana ku laabo computerkaaga kadibna C-ga tag kadibna program file kadibna meeshaas ka raadi mar kale t taabo kuma jiro kadib ka soo laabo program qaybta kale imo haddii ka dhex weysadna meeshaan captation-kaas kadibna oo ku jiro meeshaan iska soo xir right click ku dheh run soo dooro startiga kadibna registration edit ku qor inaa gudaha kasoo tarna ayaa muhiim ah kadibna yes dheh kadibna yes kadibna waxaad dhigaysaa current user aad tegaysaa kadibna software-ka ayaa ka dooranaysaa kadibna meel ka mid ah ku dhufo kadibna t taabo sida kugu soo baxo hadda kan mana soo u jeednaa dar kadib waxaad tegaysaa hyperka ayaa tegaysaa software tag kadibna meel ka mid ah ku dhufo kadibna t-ga taabo kana ma ujeednaa mana soo baxayo si aan si fiican ugu helno edit-ka tag found-ga tag nagaste kadibna ku qor faylka magaciisa team viewer kadibna find ujeeda hadda kadib wuu kuu soo helay kadibna right click ku dheh delete garee markaas delete ku samee delete yes kadibna mar kale ku celi si aad u ogaatid ujeeda asagoo firework dhinaciisa kaga soo saaray si aan u hubino kuwana kala dheerayno magacaan si inuu yahay team viewer inuu ku kala yahay saa u hubino mar kale aan ku celinaynaa saa u jeedarayno kadibna naga faanide kadib ujeedaa kadib faylka waan tiraynaa markasta aan ku celinaba markasta saa ku celisid foundiga oo ku soo saaraba waa inaad delete ka samaysa meeshaas awoodid ilaa uu ku dhawo may hadda kuma jiro faylkaas kadib iska soo xir kadib waxaa laga baahan yahay in aad tagtid computerkaaga properties aad tagtid kadibna tagtid device manage tagtid
kadibna network adapterka fur kaar networkaaga double right click ku dheh properties tag kadibna advanced tag kadibna waxaad meeshaas ka dooranaysaa network address ka dooro value-ga meeshaas jaaga saar kadibna 12 number geli oo numberka alla numberka aragtid iska geli waa in 12 door ka badan ma qaadanayo yes dheh kadibna iska soo xir markaas internetkaaga isbedel ayuu sameynaa computerkaaga inuu internetka ka jaro haddana dib ugu soo noqdo iska soo xir kulli waxaano kadibna recycle bin iska nadiifi yes kadibna waxaa ku laabanaysaa team viewer-kaaga ku laabo si toos ah u soo download garayso download leh kadibna start downloading markii downloadku kuu dhameeyo kadib waa janaalkaaga cusub ifaham kadibna waxaan sameynaa installation markaan waa muhiim inaad dooratid waa binaadhaano saan furno software installation waa inaa muhiim meesha doornaa basic iyo personal waa in meeshaas waay haddii commercial aad dooratid uu dhibaato kaaga imaanaysa meeshaas markale waa inaad doorataa mataqaanaa personal iyo basic waa inaan labada ku kala saaran yihiin kadibna accepted kadibna yes kadibna installation ku sameeyay waa intaasoo kale insha allah bidnaakin waxaan aaminsanahay Faysal Maxamed in insha allah iska soo xiraan in cilada dibdib kugu soo laaban doonin sababta commercial ayaa ku shubtay marka fiirsi properties ku waa free marka free-ga ayaa isticmaalaysaa hadii commercial dadka waxaa lagu talagalay shirkadaha alaabahaas lagu talagalay marka insha allah bidnaakin inay ka faa'iideysan doontaan ay rajaynayaan su'aashaas insha allah ku guuleysan doonto assalaamu calaykum ورحمة الله تعالى وبركاته وجزاكم الله خيرا